gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wicid injineer Faysal Cali Waraabi oo maanta ka hadlayay xaflad uu xisbigiisu ku soo dhaweynayay laba musharax oo xisbigiisa iska sharaxay ayaa waxa uu gudoomiyuhu si kul uga hadlay laba musharax oo hore xisbiga wicid iskaga sharaxay oo uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xabsiga dhigay. Gudoomiye Faysal ayaa waxa uu sheegay in uu jecel yahay in aan madaxweynaha iskhilaafin balse haddii uu madaxweynuhu uu gurigiisa ku soo doontay waa sida hadalka u dhigay uu iska celi doono. Gudoomiyaha oo arinta xadhiga labadan musharax si kul uga hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa: waadi salaam ya dhammaan dadka isku qayb galay xafladan qiimaha leh. waxaan si gaar ah u salaamayaa mujaahidiinta dhagaweyne ayaa salaamaya. waxaan salaamayaa mujaahidka kale baasha cabdiyara isna salaamaya oo isagu baasha wuxuu ina dheer yahay dee nimankii gobolka naga galay dhiiggeena qaday ayuu ilaa iyo Mareykanka eryaniyay. waa qofka qura isaga iyo gruubkiisa dadkii godobkii caruurteena dhiiggoodii faraa ku lahaa ka daba tegey buu ahaa. intaasuu dheeraaday mujaahidiintii kale. ilaahay khayr ha siiyo, ilaahay caafimaadna ha siiyo. walaalayaal hortaamo maanta haddaan gabay galaha waan gabi lahaa maalmahan ma ogtahay, laakiin gabayga ma aqaano. daa waxaan himiladeydii aan xusbiga u sameeyey 2001 ayaa hortay imika soo taraysa. waxaan islaam marka ururka sameysay reer Hargeysa cidka cod badan ma jirtaa islaam ogta. laakiin nasiib daro waxa dhacay waxaan asxaabta la sameeyey markii dagaalkii sokeeye fooshma laga yimi ee wali aan guddi nabad ahaa. marka aniga waxaan la kala garan waayay ragii dagaal ku jiro waxaan galay foodar waan galay laakiin xajiyeelay waan galo aniga iyo miraalna kareega galay waayeen marihii dagaalka wado baakiistii baa la igu qaado reer Hargeysa. markaan ururka sameeyay aan idhi war meesha Arab Sheekh Isxaaq kuma jiro ururkii ma iman Saad Musayma iman Isxaaq ma iman waxba qaldan baan ku yiri waxba qaldan. waxa qaldan waa dagaalkii sokeeye qaldan ama ogtahay qaldan. aniga waxaan ka reegaray waayay ninkayga nabadda waday. marka maanta insha Allah taala waa kaaso guri kasta oo Saad Muuse ehel baan ku leeyahay. maalaan ku faano waxaan ku yidhi ceelka Hargeysa ilaa dhagax buur cidiga ehel badan ma jirtaan ku faani jiray. tiiba hadda cadaanaysa insha Allah taala waxa weeye anigu inta dalkeen la xoreeyay de qabyaalad kuma haysan waxaan lahaa war isdaaya war wixiina hajista war isjeclaadu ma laha. laakiin waxa laga xariibsanaaday bahasha kale qabyaalada taasana shaqeynaysa. laakiin tii hadda waa la nacay one time use beeda waqtigeeda way qaadatay. maanta waxaan doonaynaa dalkeena hagaajinaa doonayna insha Allah taala aqoon wax ku xoreynaa doonayna insha Allah taala. beeshan waa ogtiino xusbiga markan aasaasay ururka Umar meegaasa madrabaa ku jiro ahaa ragii ila aasaasay ilaahu naxariistay kamid ahaa. waxa kamid ahaa raga gacanta siiyay ee intaan xusbiga joogay de marka doorashooyinku jiraan waanu iska shaxaadnaayo baa mishariyan hoos ula faqnaa wax waan siin jiro de maxaa uu sicid bay u gacan weynaa oo beesha ka dhashay baa weyn. maaluutaan madaxweyne Muuse maaluutaan yiri ka cawday lacag la'aantii doorashooyinku. markaasaan dawal misharigeena badankooda lacagta leh ninkii isagu lacagta laastoo ligu xumeeyay baa inaa wasiiso xumeeyay waan ku qof. xasan meeyaag samatar ilaa caafimaad ha siiyay waxa weeye markan gudida nabadda abaabuliyay 2 maalmood 2 bilood uu soo fasaqaatay sanad buu ayuu dawladda ka shaqeynayo isagoo raabintu islaam u shaqeeya ayaa xaq daraan la diray ma alay markaan waan ka nixi jiray isagoo bilaa baasaboor de markaa beeshani markii aan ay yimaayeen beeshi musharax ma leh waa banaxay ma ogtahay. waxaan idhi waa dawlad musharaxiin laga waayo reer Hargeysa Makaayil iyo Cabdalla Saad waxba qaldan baan ku ilmo ogtahay.
waxa intaa ay daran ka daran marka la yidhi baasha cabdiyalaa loo diiday xusbiga kulmiye taasa yaabay keentay haddana waxa yimi mujaahid maxaa weero keligii buu yimi war maxaa qasiish waxaan rabnaa musharaxiin war mujaahidiinta maxaa ka noqotay baan mujaahidiinta ilaahay baa xasoona subxaanahu wa tacaala dawanka mujaahid ibraahim waa tii hore ka soo qayb galay xitaa kuwii saaxilka muu soo qayb galin waa nin mujaahidnimo ku abtirsaa wey de waxa weeye ujeeddadan maanta waxa weeye dalkeena hagaajinaa weeye isjeclaanaa weeye walaalayaal dagaalkeenu gallay ee soo ceshinay dalkeena imaga waxa laynagu xamtaa war malaa iyo dowlka waddan ma wadi karaan baa laynagu xamtaaye dee bahasha inaan beenaynaa weeye walaalayaal dadkii nala dalkeena la lahaa ee beerihii kale wayna daawanayaan waynagu qosliyaan innagu baa isku meeraysanay waxaasna waxa weeye hoggaan xum ilaahay hoggaanka inoo hagaaji subxaana wa tacaala maantana waxa walaa dhacday doorashadan aad bay u rafatay adduunka lama arag baarlamaan hal teeram la doorto 3 teeram jooga adduunka laguma arag adduunka laguma arag golo isdhaxla oo guurtooda isdhaxla adduunka laguma arag adduunka laguma arag local council waqti ka dhacay oo ilaa hadda shaqeeya lama arag waxaad moodaa inay dowladnimadiiba aynu ku ciyaarnaan gaarkeeda garanayn markaa maalmahan dambe waanu fiicneen madaxweyne muuse uu fiicnaa lacagtii wuxuu yidhi lacagtii aan handaraabka ku xidhay waa anigaa ku qabtay diiwaangelinta ilaahay hala ku siiya baanu idhi haddaad handaraabkii aad inagu qabatay doorashooyinka tii kalena insha allahu tacaala waa kii dikartadii qoray dee laakiin wuu ka daban yihi oo shalayto u xidhay 2 ninoo musharaxiin ah ayuu xidhay de annagu sharcigiina sharci lagu xidhaana ma jiro ummaddu hadday sharci ku kala socon weydo dee way isku qasmisaa dee bahasha waxa jirta si koo lagu bixi jirayoo marka qofka la afgaran waayo tii soomaalida loo tegi jiro warde reebelow reer hebel ninka idinku weeye ka soo ninka dalka la hadlo absiyaasiya waxay yidhahdeen ninka ma wada hadallo yidhaaheen ninka ma wada hadallo markaa waxaan noo bannaan garan mayno mujaahidiinta umaan dirna dee ibraahimow haddaad soo dee weydaan de annaga waxaa noo furan markaa inaan mudaharaad samayno waddankana mudaharaad uma bannaana moogta mudaharaadna maanta dalkeena waa laynoo dhex raaciyaa berigii horean ka dihi jiray xitaa kulmiye moogta laanna waa laynoo dhex raaciya oo dad aan yaa salaada nagu xidhan iyo aan nala ujeeddaheen marka waxaan leedahay ibraahim is-urursada u taga madaxweyne muuse haynagu ceebeenayn labada inad mid waa british waa ingiriis ayuu sitaa maantuu imanaya safiirkii iyo ka wakiilka ahaa haynaga xumeyna siyaasadda 11 caaqil baa u saxay ininkaas waxaa laygu yidhi inankaa raaga aabbihii axmed yuusuf muusuu ku dhaaran jiray waa tan muuse waayaaba odhan jiray dadkii cabsanaa buu ahaa moogta dee waxaasan horta abaaldarrahaasaa dhacday aniga waxaan islahaa muuse kale dembi la'aala daymka na kala meermeriya walaalayaal wallahi waa iga dardaaran abtiyaa naga meermeriya intaa waa shibtaan iska galay wakaa waddankii wuxuu doonaba u sii daynay wakaa shalayta commissionka directorkeedii bedelay waanu xaqu lahayn waanu iska aamusnay wanaga reeraac ogolaanay waa iska aamusnay de haddana hadduu u yimaado guriga igu soo galo imaka guriga igu soo gale xusbigu soo gale de waan iska celiyaa hadhowta wanaadaha odhanina faysal oo jooga odhan waa iska celiya inamada waanu qaadanay insha allah waxay noqonayaan qaar waddanka hagaajiyo hargeysa dalka inoo hagaajiya ayaa insha allah noqonayaa xulka maanta waxa wata reer saaxil dee reer hargeysa aan la tartanma reer saaxil aan la tartanma insha allahu tacaala oo dad wanaagsan oo akhyaartanoo kale aan soo saarno maanta warkaasoo inabtigayna waa xusbigu soo galay waa abaabulka halkaa bashiir baa fadhiyo isna waxa weeye waa tacliinta abshir waa kanoo waxa isna ahaa ramaax dee maa kulmiyi halkan buu noqoye dee waa kulmiyo cudur la isku daraye halka warware wasalaam